أدب ما سنتها مر لبعض المستحات وحن وهم هذا عندنا كمرمان هذا قوة ضلنا هبين تأيس كدبرت كود الميديا سلودنا ونرفع ليه قبته هذا حق عبد الرحمن من السلامنا عبد الرحمن تعبرده واسكفي عنتي وادقن هبله صورته ما كلوله horta dhammaan way badan yihiin aniga maasooyinkayga xagga gabayada iyo xagga maxay ahayd heesaha kale baday doontaa noqoto xagga kale sheekooyinka laftooduna waa iskaga fiicanahay sameynta sheekooyinka taxana iyo kuwa gagaabana qosolka kuwa xikmadda maxay adigu waxaan qofku hal abuurka ma jiro qof wax abuura waarun qof waxaan baqaada jiro waxaan bulshaduna bay kaaga soo dhaxayn abuur oo ilaahay oo kaliya waarun marka may way jireen waxaan jecelahay inaan halkan idin kula wadaago hees aan u sameeyay inaan adigu waqtiyada waliba waqti hore aan aad iyo aad isu jeclayn oo dabeetana habeen bay ugu dhalabtana guriga kaabadiisa fadhiya neena ta hadda amaani lahayd qofku markuu maxay ahayd kugu weeyay wax kasta oo qof la mid ah la siiyay inaad ka sarreeysid sabab jecel dabeetana waxay ugu soo dhacday bal inaad taa cirka oo kaliya qaalada cirka ka jiro oo kaliya inaan ku amaano oo aanan maxay ahayd dabeetana heestaas heestaas waxay oranaysaa ruuxan mudnaan iyo doqon lama bajartay marwadii adduunka waxaan kugu masaala sida midabka waagi iyo maalin laga timo ka cirka sagalku meesho shaac lagu marimiyo moonida arooriyad min subax cadceed oo ka heedo muuqdo ama mooda galabeed maalinta oo gabaabsaday cawadaran maray tahay meela daruurta midcidiya cadceed iyo mudaya falaalo maqriboodka caadkuna inta mariyay jiilaan sida dhig la meero xijil lagu madido midmayo casawada midabkiisu dheeriyo surogay masciidi qorraxdana minkeedii dhulka baal ku mudato nuurkeedu muuqdo mashcalkiyo iftiinkuna yahay maca salaam xidigaha maqnaayay maalinta ay dabooshay maqalta xadafkiidkii mushtarkiya dagaarana cirkan u madooba marka soo yiraahday oo iftiin maalin weyniyo mid ay tahay habeenimo maankaaga kala garan mar wax lagu shaqaayo magaciisa tilmaan loo muuqisa la arkaa aanu dunyada Soomaaliya intaas oo masaarabtu midaysan munadooda leedahay jawaran macdiya lu daabay mas'aliye mahuraan isticmaaliye waxay nahay mataana midigtay bidixdan kala maarmahaynini naatiya ciyaariyaha ka dhigan masqarada mushtaagin talada martigali jacaylka arinteena meelay ruuxan mudnaan iyo doqon laba majeertay marwadii adduunka waxaan kugu masaala malkadiya dhulkaniya maalmo bari samaado dayr maraga furat iyo xays milay gaxiyada masamaha mirtay todob galay minkiisina qaseer ma weydiin malablaha guyada marayda ka cabay umar la arag ilaa bar dhulka meel ka joogiyo gudgudaha maleegtiya caro hor ma jiran dhulka meelax qoyin ma yeesgu hore waagi marka soo madoow jirka marka bari ku jiifay jirka soo madoow iyo maashiye yaro ogal milcido haysa ka daayay meel ay jaagaan ismariso heegada bulaaxda biyo gelisay maalmo milisha casaatay jihaadka baalla marba taraf ka hortiyo daruuraha magaabiya fadka maagadiistii waqalada ismeeriye isma jiray dhul intaas oo misaa aragtidu midaysan munadoodi leedahay jawaran macdiya lu daabay mas'aliye mahuraan isticmaaliye waxay nahay mataana midigtay bidixdan kala maarmahaynin maati iyo ciyaariyaha ka dhigan masqaraha mushtaagin talada martigali jacaylka arinteena meelay taasna intaas ما شاء الله إركي أو ما شاء الله هو بيصنو إلهي نمعو أيضا أنت لما يدبخنت إركي جيس هذا ركوات كقاعدة إركي جيس تكون مساج ما شاء الله هذا أنا هنعرف كي ليش سيدا أديك هو أنت إركي وجيسي أديك أنا إركي وجيسا إن شاء الله إن شاء الله يبغى تشوف تابان كلها أدوك كلي صراحة جعلك لك ما شيء لكن ما waxaan ku cadeynayaa in waqti hore suuqa ay dambeysay kulli waxaad iska tahay raabur waad iska too bulshada dhex jirnayo kulli intuu la qisa jacayl intuu la yimid lagu Cabdiraxmaan ahaan qisadii kula la yaab badan jacayl ahaan ka soo marta wali horta isku fiican xagga jacaylka inaad xalisid khilaafaadka jacaylka in badan baa leeyahay sheekooyin maxay ahayd mid kasta ta kala ka daran wallahi ma kadan lafteeda aan dadka wax xul lahaa قصدي وقتي بل أنا جانا نجير قصيصة لأن أنا ضد بدنا كل عدد ده الله أبوك أسا كاسو تابتي هلكي أنا جانا نبوكتي قصدي اسمها إلى نحسها مركي أبوك وصمينا يو وحول مثلا قف مبوغ شكل قصيصة مركب بعد قصدي كوه ليا بدنا إذا داركتي كاسو مثلا نرتاح قصدي يقول لي يعرف بدنا وحي أهيد نين كم دار لين يرضى مقالة هرقيس ayaa ninkaasi wuxuu abuur ahaan ilaahay abuuriyo wali qof bini aadama mansabku doonaha la hadal kala ma badan waligay Allah hayna inaan arrin la tagay ma yeeyo
ما يحط مركب كورة دولا واحد دوني أنا كل شيء تستوي حي ويورانا يسا حي ولقى يلا هاي نسوق النوم ما تعلم حي ترى إنك باين تعلم حي أنا تنتيو كوبا ما يحتاج صباح هذا دي مركز تمهاب فلني يسوي حاجة سيروش أنا تبارك كل شيء أرنك وشيء مركز تو أن سعودي أركبه مركز ناقة أيام بنت سلامة ويدرتوا وكل دعوة ورقد بان صاخر ويدي أنا ما يكفر سوي دي إن بأفتم حياة هذي يعني سكوي إحنا كلها ورقد بان صاخر ورقد هنا لبا يطلع الصباح أيام لا صاخر لا يقول لا يطلع الصباح وأنا أركبه وأنا كل دعوة أنا ورقد سريع تبقى يقول شفت بكون مرتين تعس أيام يقول لا يابا دي كل واحد من قصتات قرأت هاي أبى الكيسة هدونا كره وهي مركز تاج مركز تم إن كستم حكرها بها قف بعد عكت لقى يا بحض هنا تقول الله مع تعال كيسة أسهل بدي قالها هنا يدون قول الله دولار المية هرت قوتي دي هذا بقى مركز واجب كيسة بس ويكلكلك لكن طيب ما تشوفين تعال قافل صوت حيالها ولا يعني dhibaatooyinkiisu way badiyeen faa'iidadiisu way badiyeen laakiin waxaan ogaaday waxaan inay imtixaan tahay sidad kale ay ugu wana qaataan waxay wax ka hadhaan oo hal fara badan oo ka hadhaan ay tahay Cabdiraxmaan kulay bulshada nagu xidhan oo ay wadna media production ku xidhan kulay bulshaduna waxay uga baratay qosol xaraabo kulay bulshaduna deegaanka weelo marka waxaan doonay inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii shaqeynaa bal sheekooyin qosol badan oo anaga iyo deegaanka wada qoslaysaa daawadayaasha ma doonay inaad soo qabatid sheeko qosol badan horta kale sheekooyinka qosolka ah way iska badan yihiin waxa laga yaabaa bulshadu maanta qosol iyo farx waxay isaga samaysan tahay noloshu xaraabaha kala badan noqotay xitaa hadda saxaafadu fiirsato imaka waxyaabaha YouTube-da iyo marka meelaha gasho 12ka fiidiyo way soo siiyeen waxa laga yaabaa 12 kamid wax xaraabaha bulshada ka qoslinaya laakiin oo qisam maxay hada caadi u dhacday ay doonayeen inay soo qabto sheeko dheer oo maxay hada aan qoray waqtiyada kamid ah inkastoo aynu soo koobin waxay ahayd waqtiyadii doorashadii marka dowladdan kulmiye labadan maxay madaxweyne xisbiga kulmiye ay kula kala wareegayeen doorashada markii la qabanay ay sheekada marka inaan aad waqti fara badan bay ku soo wada jireen ay waayaha jacaylka wada saarnay dabeetana waxa dhacday ayaamaha inanka waxa lagu soo qoray kuwii maxay dhalinyaradii u shaqeynaysa xisbiga muraaqibiinta waxa lagu qoray meesha la yiraahdo baran baran ma aha إيجر ماشي فيصل عمر مشتاق له حقني كده ضيحة ayaa lagu qoray dabeetana ninkii inaan telefoon bay kala soo hadashay waxay u sheegtay in aabaheed in adeerkeed oo dibadda ka yimaado hay waa inuu markaa la sheegsan hay inta warkaas oo kale markaa u sheegtay inantii waa la ogaaday in cid la hadlayso telefoonka laga qaado hay wax khad la yiraahdo waa kii la xiriir u jiray waa run dabeetana ninkii sheekay meel ahaansha hawshii kaga yimaado uu garan waayay arrintii inanta marba wax soo sheegtay meel wax ku dambeeyay war ma hayso arrinkana saado ka yeesho mi ka yeelinaabay ayuu faahfaahsan hay hadda isugu dambeeyay marka hawsha soo dhamaatay iyo la wixii kadib loo badansan yahay in loo fariisto inanta loo soo fariisto ayaa waxa dhacday ninkii inantii waxay u sheegtay ninkii waxa uu sheegtay in ninkan horta ay maadiyeen hay hawsha lagu wado ninkii laftiisa uu tagay hay wariya geedkan intaas oo sanad badan soo hay ana ilaahay uu ka soo dhigay marka anigu waxaan u tagay waana inaan maxay ahayd inaan qiimaha ilaa aan u sheego aan sida ugu hadiyay wallahi ninkii wuxuu gudub naarka ma kala hay ducaan kugu daray waliba waxa laga yaabaa inaan intaas oo dhow waxa soo wada socotay inay meel isugu laga duwan weydinay ahayd dhaqaale la'aan reerka waxa lagu tagay inaan afarta ka saaray ma sha Allah hay waxa dhacday ninkii wuxuu ka bixiyay waxa la wixii dhaqaale u reerka ku jiray hay waa ninkii kala hadda ka bixiyay in adeerkan ma odayaashiisana wuxuu sheegay arrintuuna ka noqdo hay laba cisho kadibna ninkii waa intuu soo fariistay labadan abaarka ay isku lahaayeen sheekada ay jeclayeen barnaamijkeena ku soo gabagabay in aad bal mahadsantahay waqtiga qaaliga noo soo hortay Rahman waa tahay daawadayaal inta waxaan ugu soo gabagabay barnaamijkii hal abuurka daadayarle barnaamijka oo nagu martaa Cabdiraxmaan Xuseen Diiriye wana aad uga mahad celin waqtigiisa qaaliga noo soo horay barnaamijka waxa isku soo dibirday Cabdiqani Wadne
kamarada quruxda badan muuqaalada quruxda badan bixinaysa waxaa inoo duubaya Fadhi Xarago barnaamijkan barnaamij lamid inta ku kulmi doono waa anigoo Yaasmiina Cabdiraxmaan sidaas iyo nabadgelyo